wuxuu ahaa nin degan waddanka Canada. Caafimaad ayuu qabay, caadi ayuuna ahaa sida dadka caadiga ah oo kale. Caafimaad ayuu ku seexan jiray, kuna soo kici jiray. Balse habeenada ka mid ah, indhihiisa mid ka mid ah ayaa dhintay, iyadoo wax ciladana horay aanay ugu dhicin. Muddo kadibna tii kale ayaa dhintay. Waa arrin lala yaabo labada indhoodba inay iska damaan ama araggoodu uu noqdo mid aan shaqaynayn, weliba iyadoo aysan jirin wax ku dhacay markaa. Guriga waxaa la jooga wiil dhagool ah. Haddii taleefanku soo dhaco, wiilka dhagoolka ma maqlayo, isna taleefanku meeluu yaallo uma jeedo. Arrintu way cakiran tahay. Intaa kadib waxa uu aaday dhaqaatiir. Dhaqaatiirtiina hal natiijo ayay soo wada saareen, midaasi oo ah waxba kaama qaban karno. Iyadoona kii ugu dambeeyay uu ku yiri iibso eyga hogaamiya dadka indhoolayaasha ah, ama qaado usha ay qaataan dadka indhoolayaasha ah. Waxba muu sameeyno, gurigiisu iska yimid. Kadibna wadaad ayaa yimid waddanka Canada. Wadaadkii ayuu u tagay arrintiisii ayuuna u sheegay. Wadaadkii ayaa wiilkii ku yiri, arrintan waa musiibo kugu dhacday, iska sabir oo Ilaahay dambi dhaaf ku weydiiso. Ducadaana akhriso oo ah adhibil ba'sa rabbannaas ishfi anta shaafi laa shifaa'a illaa shifaa'uk shifaa'an laa yuqaadiru saqama. Cudurka tagsii rabbiga dadkow, caafi adiga caafimaad hayee. Caafimaad ma jiro ilaa caafimaadkaaga mooye, caafimaad aan ka tegaynin wax cudur ah. Ducadaasi ayuu u sheegay inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala mar waliba ku baryo, gaar ahaan habeenkii markuu soo tooso xilliga dambe. Wiilkii wuxuu bilaabay inuu ducadaasi ku celceliyo habeen waliba salaatuleylka. 3 bilood markii uu waday, habeenada ka mid ah salaatuleylkii ayuu tukaday, ducadii ayuuna ku celceliyey, wuuna seexday. Markii uu seexday, salaadii subax ayaa soo dhoweyday. Xaaskiisii ayaa u timid, kadibna kicisay. Saawaaba indhihiisii oo caadi ah oo xaaskiisii oo hortiisa taagan ayuu arkay. aad ayuu u farxay oo wuxuu la yaabay sida indhihiisa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu soo celiyay kadib markuu ducadaasi ama baryadaasi uu waday muddo 3 bilood ah. Waa wiil Soomaaliya. qisadanna wuxuu uga sheekeeyay sheekh ka mid ah shuyuukhda magaalada Muqdisho. anigana qisadan waxaan ka dhageystay sheekhaasi afkiisa isagoo ka sheegaya masjid ka mid ah masaajidda ku yaala magaalada Muqdisho, gaar ahaan maalin Jimco ah xilligii khudbada. haddaba walaalayaal, ducadan xifdiya oo barta oo bara dadka jiran. laga yaabee in Ilaahay subxaanahu wa tacaala qof ku celceliyo muddo oo Ilaahay ku caafiyo, adigana aad ku yeelato ajir. waad ku mahadsan tahay dhageysiga qisadan. fadlan sii gaarsii walaalahaaga ugu yaraan hal qof. fii amaanillah.